Assalaamu calaykum. Maxaa iska kay beddelay sanadkii dhammaaday 2018-ka? Waa maxay ujeedooyinka ugu waaweyn ee xaqiijiyay sanadkaasi? Waa su'aalo la rabo inaad isku weydiiso si cilmiyeysan. Ku soo dhawaada mawduuceena maanta. Isbeddel. Soomaali haddaan nahay, isbeddelka waxaan u naqaanaa in aan lacag helno ama aan darajo sare gaarno. Waana taas waxaan isku beddeli la'nahay sanad waliba. Isbeddel ma gaari kartid adigoo aanan fiirin marxaladda aad ku sugan tahay iyo isbeddelka markaasi aad isku samaysay nafsiyan. Isbeddelku laftigiisa heerar ayuu leeyahay. Sanadkii la soo dhaafay, haddii aadan aqoon sida wax loo sawiro ama video loo edit kareeyo ama wax loo artist kareeyo adiga ka soo qaasaas oo kale oo aad sanadkan baratay, taas laftigeeda ayaa la yiraahdaa isbeddel. Laakiin isbeddelkaas yar adoo fiirin ayaa waxaa fiirinaysaa mid sare oo aad darajada aad ku sugan tahay aan gaarsiisaneen. Marka isbeddel maad xaqiijin kartid adigoo guriga aas-aaska ka soo dhisin. Marka isbeddelka yar ee aad ku sugan tahay markaas fiiri kan sare oo aad u jeedo waad gaaraysaa. Dad ayaa ku imaanaya wax ku leeyihiin warniga maxaa iska beddelay. Bal isbeddel lama yiraahdo in lacag ama aad darajo aad gaadho. Laakiin isbeddel waxaa la yiraahdaa waxyaabaha yaryarka ah oo iska kaa beddelay. Nin darajo sare maraya maxaa iska kay beddelay lacag waa helay wuu dhihi karaa. Laakiin adiga darajada aad ku sugan tahay fiiri. Maxaa sanadkan kuu qabsoomay? Waa maxay waxyaabaha ugu yaryar aad iska beddeshay? Maanta meeshan waxa kugu soo jeedin doonaa 3 qodob oo aad isku beddeli doonto sanadkan 2019-ka. Waa haddii aad ku dhaqanto. Qodobka koowaad, go'aan. Markaan leeyahay go'aan, waxaan ka wadaa go'aan aad ugu adkeysan karto in aad ku istaagsanaado hamigaaga. Dad ayaa kuu imaanaya waxay ku leeyihiin warniyow heerkan ma gaari kartid, video ma samayn kartid, qoraal ma noqon kartid. Laakiin maskaxdaada ku hay in dadkaas beri gacanta ku soo hoos dhiganayaan ay ku leeyihiin warniyow wax la qabo. Waana dadkii shalay ku niyad jebinayay. Qodobkaas go'aankaaga waa inaad ku taagnaataa. Qodobka labaad waa inaad dadaashaa. Go'aan ku taagan kaliya heer kuma gaaraysid. Ilaahay wuxuu ku yiri wax kasta looxul maxfuudka kugu qoray. Laakiin waa inaad dadaal samaysaa oo aad meesha ka kacdaa oo wax raadisaa. Haddii aad meesha ka kicin oo aad dhahdid hamigeyga waa saas ma gaaraysid, waa inaad dadaal ku dartaa. Qodobka saddexaad waa inaad lahaataa shakhsiyad. Maxaa ula jeedaa shakhsiyad? Shakhsiyad aad ugu adkeysan karto duruuf kasta oo ku soo wajahda. Ma waxa imaan kara marar aad duruuf ku jirto, laakiin lama rabo inay wiiqmato hamigii aad nolosha ka lahayd ama isbeddelkii aad rabtay inaad xaqiijiso. 3daas qodob haddii aad ku dhaqanto waxaa kuu ballan qaadayaa in aad gaadho hamigaaga. Waa mahadsantahay. Anigoo ah Asifka hayo oo idin leh salaamullaahi calaykum.